أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، casharkeenna waa kii 28aad oo ka mid ah kitaabka qur-aanka oo kariimka tafsiirkiisa. kullu طacaami, cunto dhammaanteed, kaana طacaamkaasu wuxuu ahaa xillan mid u bannaan libani israa'iila reer bani israa'iil, ilaa maa shaygii maahane xarama uu iska xarimay israa'iilu yacquub calaa nafsihi naftiisa min qabli an tunazala intaan la soo dejin ka hor attowraatu towraad. qul nebi moxamedow waxaad dhahdaa fa'tuu la imaada bitowraati towraad, fatluu akhriya haa ayada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya. faman ruuxii iftaraa abuurta calallaahi alla dushiisa alkadiba been min bacdi daalika muddadaa ka bacdi, fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagaa addaalimuuna kuwa daalimiinta ah. qolyihii reer bani israa'iil oo ahlu kitaabka ahaa qaybo ka mid ah ayaa waxay la yimaadeen been abuurad ay leeyihiin cuntooyinka qaybo ka mid a ayaa naga xaaraam oo noon bannaanayn, waa ka caagannaha waxay soomaalidu ohan jireen weye. waxayna leeyihiin arrimahani kitaabtayadii bay ku qoran tahay, kani waa xaaraan oo kani waa xaaraan oo kani waa xaaraan, ashyaabay tiriyeen. waxayna leeyihiin towraad iyo kitaabtayadaa qoraysa. ilaahay wuxuu leeyahay kullu طacaami kaana xilla libani israa'iil, cuntada noocyadeeda kala duwan oo dhan reer bani israa'iil xalaal bay u ahaan jirta. horta taa qabsada. waxaa jira hal shay oo uu nebiyullaahi yacquub, asaga israa'iil waa asaga, waana cabdullaahi magaceedu, yacquub uu iska xarimay. halkaa shay maahane wixii ka soo haray intaas reer bani israa'iil xalaal bay u ahay. yacquub markuu arrimahan iska xarimayana min qabli an tunazala towraa, towraadba waa ka horraysayba, waa wax intaan towraad la soo dejin ka horba ahaaba. haddaad marka leedihiin annaga towraad baa waxaasu noogu yaallaan, fa'tuu bitowraati, keena ayada. soo ma haysaan oo kitaabtiina kuma qorna, keena akhriya, markaasay caddaanaysaa runtiisu. haddiidaan keenin soo ma aha, beenaalayaal baa tihiin, ilaahay baad ku been abuuranaysaan iyo kitaabtiisa. ilaahay kitaabtiisa qofkii ku been abuurtana waa daalim. waxaa nebigeenna ka sugan sala allahu calayhi wasalam inay u yimaadeen qolyo ahlu kitaab oo yahuud ah, markaasi waxay ku yidhaahdeen su-aalaan ku weydiinayna, hadda ka horre waa soo sheegnay. su-aalahaasna ninaan nebi ahayn oo ka jawaabi kara lama arko. haddii aad ka jawaabtidna waanu ku raacaynaa bay yidhaah. ma ballan ilaahi baad ku galaysaan inaad haddaan su-aalaha ka jawaabay rumaynaysaan? waa ballan ilaahi. su-aashay weydiiyeen waxay ahayd, nebiyullaahi yacquub cuntadu iska xarimay maxay ahayd? nebi yacquub iyo nebi maxamed isma soo gaarin, isku waqti ma ahayn. mar haddaysan isa soo gaarin dee si kale uu ku ogaan kara maaha, waxyi maahan. ayaguna way ogyihiin arrinkaas. markaasuu yidhi nebiyullaahi yacquub wuu xanuunsaday muddo dheer. hadduu xanuunsanaabuu ilaahay ballan wuxuu ka galay, ilaahayow xanuunka haddaad iga caafisid, cuntada iyo cabitaanka waxaan ugu jeclahan iska xarimayaabi. nadar buu gala, ilaahay waa caafiyey. cunto uu cuno hilibka geelow nebi yacquub ugu jeclaa, cabitaanna caanaha geela ayuu ugu jeclaa. wuxuu ugu jeclaayoo iska xarimay marka taasay ahayd, ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi. ilaahay baan idinku dhaariyey, su-aashaas sidaan uga jawaabay sax ma taha? kitaabkiinni towraadna sidaanba ku qoraysay. yidhahdeen haa. su-aal labaad bay weydiiyeenoo waxay yidhaahdeen, biyaha dumarka shahwadooda iyo tan ragga warbixin naga sii. ilmuhu muxuu marra wiil u noqdaa, marra gabar u noqdaa? muxuu marree abtigu ugu ekaadaa, marra ree aabbihii iyo ree adeerki? markaasaa nebigu waa laba su-aalood oo isku dhex dareen. biyaha raggan idinka warramayaaye way cad yihiin biyo xagga midab ahaan, xoogaana waa qallafsan yihiin oo waa adag yihiin. biyaha dumarkuna waa jaallo oo ma cadda
waana jilicsan yihiin xagga qiraa'ah iyo awood ahaan waa xagga midabkooda xagga ilmaha abuurkiisa riximka hooyada markay manidu isugu timaado tii ragga iyo tii dumarka tan ninku hadday kor marto ilmuhu wiil buu noqon sida qaalibkaana ilmuhu reer adeerkii buu ekaanaya aabihi hadday tan hooyadii kor martana ilmuhu gabar buu noqon waxaana laga yaabaa inay u ekaato dhanka hooyadeed iyo reebtigeed u ekaato waana idanka ilaahay bay sidaas mararka qaarkood ba waxa dhici karta idanka ilaahay saa inaysan ku dhicin oo tii hooyadu soo hormarto ilmuhu wiil noqdo tii aabuhu soo hormarto tii ilmihii gabar uu noqdo ilmihii dhanka kale u ekaado waa wax idanka ilaahay ku shaqeeya ee ilaahay baan ku dhaariyay diintiina sidaa ma ku qoray markaas ay yiraahdaan haa su'aal saddexaad baan ku weydiinaynaaye nabi waxaa jira qolyo umuyiina laga soo saari doono oo aan waxa weeyaan aqoon lahayn oo waxba akhrin nabiga tilmaantiisa noo sheeg bali markaasuu yiri aynaahu tanamaan walaa yanaamu qalbuhu labadiisa indhood baa seexda markuu seexanayo laakiin qalbi ahaan waa u soo jeeda ee ilaahay baan idinku dhaariyay nabiga ilaahay uu soo saari doono oo kitaabtiina ku qornaa tilmaanta ma laha inay indhihiisu seexanayaan markuu hurdoonayo oo hurdo isu diyaariyo laakiin qalbi ahaan u soo jeedo bali su'aalo noocaas waxay weydiiyeen dadka markay jannada galaan dadka jannada galay wax ugu horeeyo cunayaan markaasuu u sheega hal su'aal baan ugu ka dhiman bali ayadaasaan ama ku kala tagaynaa ama isku raacaynaa maxay tahay diintan la sheeganaysa yaa ku keenay markaas wuxuu yiri jibriil baa ilaahay igu soo kiin dhiiba markaas ay waxay yiraahdaan hadda wax qaribta al'aana nufaariquka haddaan ka tagaynaa waxaan ku raacaynaa male waxa badi ugu dambeysay inkaar qabayaal markaasuu yiri maxaa jira saaliye malaka sheegayso malku jibriil waa dagaal oogaale in 24 saashida ka shaqeeya iyo ummad la xasuuqa iyo dagaal iyo jihaad iyo kan la iyo kan dil weeyaan bal marka malagaas ma ahna malaa'igta fiican oo roobka iyo naxariista iyo kuwa ka shaqeysa maxaa kuwa u keenay weydii bali markaasuu wuxuu yiri anbiyada ilaahay oo dhan igu horeysayba asaga ilaahay waxay ugu soo dhiibi jiray marka hadaad xataa ayaga rumaysantihiin ayagaasuu diinta u keenay haddii hawshaas aan waxba kama qaban karbiyo Allah ugu talagalay kullu ta'ami kana xilla li bani israa'iila illa ma harrama israa'iilu ala nafsi marka wuxuu iska xarimay waxay ahayn hilibka geela iyo caanihiisa ma la faham xadiidkaas aan nabigu ku cadeeyay goormay ahayd min qabli an tunzala tawraat binta lagu soo laana tawraat lagu soo dejiyay nabi Muuse Sooma nabi Muuse min anbiyaa bani israa'iil buu kamid yahay horeeya Yacquub ku abtaysanaya Yacquubna inta nabi Muuse la soo dirin koor buu dhintayba waa marka koor marka wuxuu iska xarimay hilibkan iyo caanaha qul faatu bi tawraati fatluha in kuntum saadiqiin la imaada ayadii hadaad run sheegaysaan way oo akhriya kullu ta'ami raashinka dhamaanti kaana wuxuu ahaa xillan ay xalaal midu ah libani israa'iila ree bani israa'iil illaa maa shaygi maahana xarama uu xarimay israa'iilu yacquub calaa nafsihi naftiisa uu ka xarimay min qabli an tunazala intaan la soo dejin ka hor at-tawraatu tawraat intaan la soo dejin nabiyullaahi ibraahimna waqtigaas waa ka dambeysay macnaha nabiyullaahi ibraahim yacquub waa ka horeeyay yacquub waa in ibraahim Sooma isaga ka hor dhintay marka ayaga marka waxay leeyihiin ibraahim baa sida qabay oo sidaas war nabiyullaahi ibraahim maahane nabiyullaahi ibraahim xabta yacquub ka sii horeeyay qul waxaad ku dhahdaa faatu la imaada bitawraati tawraat fatlu akhriyaha tawraat waxaa idin cadaanaya markaas inaan anigu run sheegayo idinkuna aad been sheegaysaan in kuntum hadaatihiin saadiqiina kuwa run sheegay faman qofkii iftaraa uunta على الله ألا دوشيس الكذب بين من بعد ذلك مركا كبعد يحجد انت أعداتي كبعد قفكي بين أبورته ووحن إلهي حرامين يرهد وحرام وحي إلهي حلاليين يرهد وحرام فأولئك كواس هم يقى الظالمون كوا ظالمين تاء وحقي ضافي وباطل كأوجد بي قل نبي محمد وحد هذا صدق الرن أيو شيء الله ألي arrinkan ilaahay waa ka run sheega sidaas ilaahay uu idin ka waramay oo nabiyullaahi yacquub inuu hilibka geela iyo caanihiisa iska xarimay sadaqa allah ilaahay run buu sheegay fattabi'uu raaca millata ibraahiima nabiyullaahi ibraahim diintiisa raaca aniga laftirkayguna ayadan ku dul sugnahay nabiga sallallahu alayhi wasallam
xaniifan xaaluu yahay mid iishay oo diimaha xunxun oo dhan ka iishay wamaa kaana ma uusan ahayn min almushrikiina kuwa gaaloobay mid ka tirsan mushrik ma ahayn waa inagii sheegnay qolo walba waa sheegatay qolyihii yuhuudeed waxay yidhahdeen anagu naga tirsan yahay kiristaankuna waxay yidhaahdeen anagu naga tirsan yahay qolyihii carbeedna waxay yidhaahdeen aabbahaya nebi ismaaciil buuba aabba u ahaayo awowgaya weeyaanoo asagana qibladii uu dhisayna waa tan oo annaga xaramkii gacanta ku haynaba marka annaguna ahaa qolo walba way sheegata marka asagaa ilaahay weydiistay inuu dadka dhan agtiisa ka ammaanado wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin asagaa ilaahay weydiistay ilaahna waa ka aqbala qolo walba marka maanta walay u haysaa iyo jacayl laakiin jacaylka hadda dhamma yaha aayaddaani waxay sheegtay ilaahay wax allaala wuxuu ka warramaa waa run wax allaala wuxuu sheegaa ilaahay waa run qodobkaasi waa qodobka labaad amar waxaa layna siiyey fattabicuu millata ibraahim diintii nebi ibraahim in la raaco nebi maxamed xataa ma'muur wuxuu ku yahay amar lagu siiya inuu diintii nebi ibraahim raaco muxuu ku raacayaa usuusha tawxiidka ayaa la isku raacayaa ama furuucda waa laga yaabaa in lagu kala duwanaa fattabicuu mil ahayn laba qodobba ayaddu waa caddaysay kow waxay caddaysaa diintii nebi ibraahim inay ahayd diinu tawxiid laba waxay caddaysay nabiyullaahi ibraahim mushrikiinta iyo ahlu kitaabka labadaba inuu beri ka ahaa qolyahooda gaalada ah inuu beri ka ahaa labadaba way caddaysay qul waxaad dhahdaa sadaqa run buu sheegay allaahu alle fattabicuu raaca millata ibraahima nebi ibraahim diintiisa xaniifan xaalo uu yahay mid iishoo diimaha xunxun ka iishay wamaa kaana min almushrikiin gaalada mid ka tirsanna ma ahayn inna awala beytin guri kii ugu horreeyey oo wudica loo dhisay oo loo dhigay linnaasi dadka dhulka dhexdiisa say ugu cibaadaystaan laladii kii weeye bibakkata maka ku sugnaa laladii bibakkata maka ayaa taqaanaa magac labaad ay leedahana waa tana waa maxay meesha miimka ba in loo bedelo layaha bakka marka laladii bibakkata mubaarakan xaaluu yahay mid la barakeeyey wahudan xaalo uu yahay hanuun mid u ah lilcaalamiina uunka oo dhan fiihi waxaa dhexdiisa ku sugan waa bakee iyo xaramka aayaatun calaamado bayinaatun cadcad minhaa waxaa ka mid ay ka dhigan tahay maqaamu ibraahiima nebiyullaahi ibraahim meeshuu u istaagay waman qofka dakhala galahu xaramka kaana wuxuu ahaanayaa aaminan mid aamin ah walilaahi alla waxaa u sugnaaday calannaasi dadka dushoodana ugu sugnaaday xijulbeyti beytka inay u xajiyaan oo aadaan man qofkii istataaca awooda ilayhi xaggiisa sabiilan wadda ahaan waman ruuxii kafara gaalooba oo diida xajkii fa inna allaaha alle haniyun mid ka deeqtoon weeye canilcaalamiina uunkoo dhan ayuu ka deeqtoon yaha labadan aayadood waxay sheegeen kow masaajidkii ugu horreeyey oo arlada dusheeda laga dhiso inuu ahaa masaajidka xaramka oo maka ku yaalla yaa dhisay nabiyullaahi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil somaynaan soo marin waa soo maray qodobkaasi waa qodobka labaad waxaa meesha ku cad beydkaas maxay u dhiseen wudica linnaasi dadku inay ku cibaadaystaan wax kale looma dhisin in dadku ay ku cibaadaystaan ilaahay keligiina lagu caabudo saddex beydkaasi meeshuu ku yaallana waa la sheego makuu ku yaalla tilmaamo uu leeyahay ayaa la sheego mubaarakan weeyaanoo mid la barakeeyey baa lagu tilmaama waa la barakeeyo ilaahay baa khayraadkiisa badiyey wahudan lilcaalamiina caalamkana hanuun buu u yahayo dee waa qiblada ay cibaadadoodaba la aadaanba salaadii baa lala aadayaayo xajkii baa lala aadayaayo cumradii baa lala aadayaayo salaadiina asagaan ula sii jeensan kuwan kalena asagaa loola safraya ama qofkii jooga ula soo aadaya ayib huda lilcaalamiin wey calaamadaha dhexdiisa ku sugan maxaa ka mid ah maqaamu ibraahim waa laba macnoy culummadu ku fasiraan sida ibnu kathiir uu sheegay midkood waxaa weeye markii uu dhisayay oo xajarka meesha saarayay cagta meeshuu saaray nebiyullaahi ibraahim baa maqaamu ibraahim loo yaqaanaayo cagtiisii maalinkaa uu saaray ilaa yowmina haadaa weli meesha waa ka muuqata marka maqaamu ibraahim meeshuu cagta saaray in laga wado kow iyo maqaamu ibraahim xaramkao dhan in loola jeedo inta lagu tukanayo xaramkaahoo dhan ma la fahmo intaas labadaba maqaamu ibraahim waa la yidhaahdaa ayib
taasi waa qodob oo aayaadka ka mid tahay maqaamu ibraahim ama xaramkoo dhan ama meeshuu cagta saaray aayadda labaad waxaa ka mid ah waman dakhalahu kaana aamina qofka galaay aamin ayuu noqonayaayo haddee dil u banbixi maayo la dili maayo dulmi kuma bannaana meeshaas ayada ah amni buu dareemayaa ilaahay baa ku badbaadinaya sida awgeed buu wuxuu leeyahay abu xaniifa waman dakhalahu kaana aaminan markuu ka hadlayo qofkii qof dila hadduu inta soo gala xaramka uu ku dhuunto ama wuu zinaysto waxaa la rabay xad in lagu oofiyo intuu cararayba xaramka gala ama diintiibuu ka baxo waaba ridoobayba qofkii ridooba soo in la dila ma ahayn kulli intay fakadeen bay xaramka isku gureen kii zinaystay xaramku galay kii dadka laayana xaramku galay murtadkiina xaramku gala waxaa liya abu xaniifa kaa maxaa lagu samaynayaa ma la dilayay maxaa dhacay baa le waman dakhalahu kaana aaminan soo ilaahay ma odhan haa la taaban maayay hee dadkan xuquuq baa ku waajibtay mid aadana iyo mid ilaahayba isugu jirta xadkii in laga ogana waa la rabaa maxaa la samaynayaa baa le wuxuu yidhi la taaban maayo laakiin waxna la siin maayo cunto iyo cabitaan midna loo geyn maayo waxna laga iibin maayo inay magaalada bannaanka inta usoo baxaan wax ka iibsadaana looma ogola go-doomin xagga dhaqaalaha iyo cuntada labadaba waa la saarayaa markaas waxay ku khasban yihiin inay bannaanka usoo baxaan bannaanka markay usoo baxaan xadka laga ofinayaa ma la fahmo qodobka laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan xaramku waa aamin laakiin xad ilaahay qofkii galoo meeshaa ku gabada ama xad aadama soo galo dad laayoo meeshaa gala xaramku ma badbaadinayo nebi maxamed maalinkuu soo galay baa waxaa liyi nin ibnulkhatal la yidhaahdo murtad ahaa oo diinta ka baxay qofkii diinta ka baxay soo in la dila ma ahayn asagoo taas qabay buu haddana dad muslimiina sii dilay dhiig islaamna waa qabay qisaas baa ku waajibtay waa laba isugu darmatay soo maa kii qisaasid iyo kii riddada baa wuxuu yaqaana dhaqankii carbeedo carabo waxay lahaayeen qofku 10 qof boqolaal hadduu dilo mar xaramka gala lama taaban jir ninkii aabbaha iyo hooyada iyo ilmahaagaba dilay baad waxaad arkaysaa asoo xaramka dhex maray farna ma saaray saasay samayn jireen kanu wuxuu is yidhi maadaama maka la furtay oo maxamed uu qabsaday adiguna dhiigyo cabaatoo horey wax u dishay diintiisina aad ka baxday ala ilaahi kacbada qabso daaheedu waliba qabsada markaasaa le ninkii ibnu khatal la odhan jiray mutacalliqun biastaari lkacba suu nebigu sal lla alay slam uqtuluuhu wain kaana mutacalliqan biastaariha dila buu hadduu doono daaheeda ha ku dheganaade meeshii baa lagu dila marka kow lagaga sii qofkii marka dhiig islaan qaba ama diintii ka baxay ama waxa weeyaan ridoobay ama soo zinaysto meesha kusoo cararay markii liya xadka laga oofinayaa xaramku badbaadin maayo laakiin qofkan wax dhiba geysan waman dakhalahu kaana aamina ayib walilaahi cala annaasi xiju lbeyti ilaahay wuxuu dadka ku waajib yeelay beytkaas inay u xajiyaan cumrigii hal mar bay kugu waajibaysaa 100 sano haddaad gaarto 200 sano gaartid hal mar waa haddaad xoolo heshido awoodeeda leedahay marka haddaad soo xajido waa kaa dhaca laakiin haddaad adigu isku waajibisid markastood isku waajibisid waajib buu kugu noqonaya oo ma dhici kartaa qof bani aadami inuu asagoo xaj isku waajib yeela haa seebay ku dhici kartaa haddaad tiraahdo ilaahu xanuunkan haddaa iga caafisay waxaa igu ballana inaan soo xajiyo oo ilaahay ku caafiyo maxaa lagaa sugaya waajib waxaa kuwa inaad soo xajitid ilaahu muraad baan leeyahay noocaas haddaad ii sahashid waxaa igu ballanaa inaan soo xajiyo adaa isa saaray wujuubkaas ogow ilaahay hadduu wixii ku siiyo waajib adigu aad isa saarto aad ka bixi karin weeyaane waa inaad soo xajida ayib laakiin haddaan wax nadar u jirin cumrigii hal mar unbuu kugu waajibaya qofka uu ku waajibaya waa kee man istataaca ilayhi sabiila waa qof awooda see uu awooda laba qaabba waad ku awoodi kartaa binafsihi qofku waa ku awoodi karaa xoolihii baad haysataa adigii baa caafimaad qaba waa tegaysaa naftaadaad u tegin waa soo noqon ama bikayrihi buu ku awoodaa bikayrihi waa maxay xoolihii waad haysataa jidkiina waa ammaan laakiin adaaban diyaaraddii iyo waxba aqbalaynin waa xanuunsanta dhibaato kale ku haysato oo kaa mancinaysa xoolahaagaad inta qof u dhiibtid baad leedahay iga xaji marka xajki waa kugu waajibay laakiin daatadaada meeshii geen maysay qof kalaa naa'ibka ah mal fahmo qodobkaasna labadaasba waa taas sahaydiina waa inuu haysto sabiilka iyo waddada la marayana meel uu ku ammaan helaya waa inay tahay ciddii uu ka tegay oo ehel iyo caruur iyo xoolo ahaana ama waa inuu ammaan u helayo ama calaqal cid uga sii fillaata waa inuu helayo ilaahay aayaddaa wuxuu ku gabagabeeyey waman kafara fa ina allaha qaniyun cani ilcaalamiin
maxaa xajkaas guditaankiisa iyo isaga xiran waman kafara culimadu wixii leeyahay qofkii awood u leh oo aan soo xajinin waa gaal culimada qayb baa qabta Umar ibn Khattab wuxuu oran jiray mar hadduu qofku awood u yeesho xajka oo uusan soo xajin diintu rabaha ku dhinta bi ama asoo kristaan ha dhinto ama asoo yahuuda ha dhinto diintu rabaha ku dhinta bi macnaha muslimna ha weey culimadu markuu waa isku khilaafsan yihiin laakiin gobol kamid ah qaba inuu gaal yahay dii qofkii asalkeedaba diido wujuubka sidiisu gaal u yahay laakiin kiila waa waajib xaqana aan soo xajin waciid adag baa u yaala waa inuu iska ilaaliyo ilaahi taacooyinka aan samaynayno wax baahiya uma qabo waa qani qaniyun cala alcaalamiin kulli dadku dhan haday gaaloobaan waa qani kulli haday islaamaan waxba u soo kordhin maayaan aynaga un baahan inna awwala baytin gurikii ugu horeeyay oo wudica la dhisay linnaasi dadkana loo dhisay si ugu cibaadaystaan lalladii kii weeye bibakkata maka ku yaalay mubaarakan xaaluu yahay mid khayrkiisa la badiyay salaadaha lagu tukadaa salaadaha kale waa ka fadli badan yihiin wahudan xaaluu hanuun yahay lilcaalamiina uunko dhan uu hanuun u yahay fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan aayaatun calaamado bayinaatun ee cadcad maqaamu ibraahiima minhaa waxaa ka mid a maqaamu ibraahim nabiyullaahi ibraahim meeshuu ku istaagay ama xaramka oo dhan waman qofka dakhala galahu beydkaas kaana wuxuu ahanayaa aaminan mid badbaaday walilaahi alla waxaa u sugnaaday calanaasi dadka dushooda xijul beyt kulli waa aayaadka ilaahay oo xaramka ku sugan waxaa ka mid a maqaamu ibraahim waman dakhalahu kaana aaminan baa ka mid a walilaahi calanaasi xijul beyt oo meel kale looma xajin karo meelo waxaa jira Soomaaliya ku yaalo loo yaqaan xajul masaakiin oo lagu tawaafo oo la wareego oo waxa la waliba ku aasan la yiraahdo man zaara qabra fulani qofkii hebel qabrigiisa soo booqda fa kaanama hajja baytallahi guri ilaahay soo xajuu la mid yahay waa dhulmi waana gaalimo diinta ilaahay lagaga fogaanayo meel kale ma jirto kuwana waxay yiraahdeen waa laga soo leexiyay xaggaba meeshii loo xajin jiray xaramka ahayd waa laga soo leexiyay gobolada Soomaaliya gobolada dhex meel kamid ah la keenay yiraahdeen marka arrinkaas waa dhulmi iyo been abuura sharciga ilaahay lagu been abuuranayo walilaahi cala naasi xijul beytka ilaahay inay u soo xajiyaan baa dadka dushooda saaran ma dadkoo dhan baa man ruuxi istataaca awooda ilayhi jidkaas sabiilan wada ahaan ilayhi xajkaas sabiilan wada ahaan aayaadka maxaa ka mid ah waman kafara fa ina allaha qaniyun cala alcaalamiin afar aayadood baa halkaa lagu sheegay qofkii diida waa gaal qofka gala waa aamin dadku waa inay xajiyaan oo aadaan maqaamu ibraahim afartuba waa aayaad waman kafara qofka gaalooba fa inna allaha alla qaniyun mid ka deeqtoon weeye canil caalamiina unka oo dhan qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiyow dadkii ahlu kitaabka ahaayow lima maxay baa takfuruuna ugu gaaloobaysaan biaayaatillahi ilaahay aayaadkiisa qur-aanka ah maxaad u diidaysaan qur-aanka ilaahay maxaad u diidaysaan walxaal allaahu alle shahiidun mid ka markhaatiya uu yahay calaa maa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan oo camal ah ilaahay camalkiina waa ogyaha ogaalka maxaa ka dambeeya abaal baa ka dambeeya ayadoo ay sidaa tahay inaad ilaahay qur-aankiisa ku gaalowdaan weliba aada ogtihiin inay xaq yihiin maxay ku dhacda ahlu kitaabu canaad bay ku dhacda qul waxaad dhahdaa yaa ahlalkitaabi kitaabka dadkiisiiyow lima maxay baa takfuruuna ugu gaaloobaysaan biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa walxaal allaahu alle shahiidun mid markhaatiya uu yahay calaa maa shayga tacmaluuna aad samaynaysaan qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow lima maxay baa tasudduuna dadka uga hor istaagaysaan can sabiilillaahi tasudduuna maxaad uga hor joogsanaysaan can sabiilillaahi jidka alle man ruuxii aamana rumeeyey tabquuna xaalo aada la raadinaysaan haa sabiilkaas iyo waddadaas ilaahay ciwajan xaalo uu yahay mid qalloocsan walxaal antum idinku shuhadaa'u kuwa markhaatiyaa tihiin wamallaahu alle biqaafilin mid moog ma aha camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan ilaahay wuxuu ku eedeeyey qolyaha ahlu kitaabka dhowr qodob tii hore waxay ahayd alkufru biaayaatillaah aayaadka ilaahay ku gaaloobeen tan labaadna waxaa weeye dadkii aayaadka ilaahay rumeeyey ayay jidkii alla ka hor istaageen see uga hor istaagayaan inta mu'miniinta inay dacaayadeeyaan oo yiraahdaan waa balaayoy waa irhaabey hal iska ilaaliyo diintana waa diin wuxuushnimo dumarkay laysaayay raggay laysaayay jacaylkay ka hor imaanaysaayay xorriyadda ma ogolo diintii bay marka dadka ku dirayaan oo suuradeeda xumaynayaan
dadkii diinta qaatay oo warkooda dhag jalaq u siina cadaadis bay saarayaan mid ay xabsiyaan iyo mid ay xiraan iyo mid ay magac ku dhajiyaan oo yiraahdaan argagixisaa tahay iyo dhibaato dadka ku sameynaya jidkii ilaahay bay dadka ka hortaagan yihiin marka maxay la rabaan ciwajan ciwajku waa qalooc leexsanaan bay la rabaan iyo suura fool xumayn waxa cajiib ah wa antum shuhada markhaatibaatihiino waxaad ogtihiin diinta ilaahay raaliga ka yahay oo diinta saxda inay diinta muslimiinta tahay kitaabtiin ina ku qoranto aqoon darra idin ma hayso warnimayo maxaa saa u sameynaysaa wama allaahu biqaafilin cammaa tacmaluun waxa aad samaynaysaan oo kufri ah oo beenin ah oo ka hor istaagi dadka ajidka ilaahay ka hor istaagtaan ah ilaahay ma mooge waa ogi waayahay ilaahay muu halaago maalin aan maanta ahayn buu ugu talagalay inuu ka jaro marka ma la mooga waa la ogyahay yaa ahlal kitaabi kitaabka dadkiisiiyow lima maxayba macnaha yaa ahlal kitaabi waxaa loogu dhawaaqayaa culimmadu leeyihiin inay kitaab haystaan baa waxaa la rabay inay ku xambaarto inay nebi maxamed rumeeyaan leanna dadku waa ka aqoon badan yihiin nebi maxamed tilmaamihiisiiba hayaan kitaabkiisa tilmaamihiisay hayaan ilaahay baa waqtigiisa iyo meeshuu ka soo baxayo wuxuu dhan u sheegay wuu ogyihiin dadka waxbaad dheertihiine ka faa'iidaysto u degdega miidaan samayn soo maaha waa la idin sugayaa idinkana yaa ahlal kitaabi kitaabka dadkiisiiyow lima maxaybaa tasudduuna ugu hor joogsanaysaan can sabiililaahi jidka alloo islaamnimada ah man ruuxii aamana rumeeyey ama rumayn laha labadaba tabquuna xaalo aad la dalbaysaan haa waddadaas ciwajan ama tabquuna xaalo aad dalbaysaan ciwajan ay mucwijatan xaalay tahay mid qalloocsan qallooc baad la dalbaysaan ama mucawajatan xaalay tahay mid la qalloociyey walxaal antum idinku shuhadaa waa tihiin markhaati wama allaahu alla biqaafilin mid moog ma aha camaa waxa tacmaluuna aad samaynaysaan aayaddii hore waxay ku dhammaatay wallaahu shahiidun calaa maa tacmaluun ilaahay markhaati buu ka yaho waa u jeedaa waxaad samaynaysaan tanina waxay ku dhammaatay wama allaahu biqaafilin camaa tacmaluun ma mooga ilaahay waxaad samaynaysaan marka waana la idiin jeedaa la idinmana mooga haddaan adduunkan laydinku ciqaabinna haamoodin in sidaa laydinku daayey maalin kalaa laydinla dhowranaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyadow in tudiicuu haddaad yeeshaan fariiqan gabal haddaad adeecdaan iyo koox oo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka yarudduukum waxay idinka celinayaan yarudduukum waxay idinka ahaysiinayaan bacda iimaanikum rumayntiinna ka bacdi bay waxay idinka ahaysiinayaan kaafiriina kuwa gaaloobay oo xaqa garab maray culimmadu waxay leeyihiin aayaddaana waxay ka warramaysaa oo ku soo degtay qolyihii yuhuudeed baa waxay arkeen madiina la wada deganaa khaybarna yuhuuddu way deganaayeen loolan aada u dheer oo cunsuriyad iyo qabyaalad ku salaysan baa waxaa ka dhaxayn jiray islaamnimada ka hor qolyahan yahuudeed iyo qolyihii carbeed weliba khaasatan qolyihii ansaareed oo aws iyo khajraj ah oo yeman asalkoodu ka soo jeeda dagaal dheer bay iskula jiri jireen waxay arkeen marka yuhuud qolyihii ansaar iyo khasraj oo midoobay oo islaamnimadii qaatay oo nebi maxamed rumeeyey waxay yidhahdeen labadaa qolo hadday mar midoobaan jiritaankeenna inaga yuhuudu ma sii jirayo waa baaba-ina ayagoo qaybsan oo islaaya baan hal qoys oo ayaga ka mida ka reen weyno ama aws ama khasraj maanta hadday inoo midoobaan qolyihii carbeed oo xagga ka yimid iyo qurayshna u yimaadaan maxamedna hoggaanka u qabto ay noo dhammaataali maxaa xal ah aan isku dirna maali ayaga marka fitan bay ka dhex shaqeeyeen marka waa la isku diray muslimiintii bay balaayo dhex dhigeen markaasaa xoogaa waxaa yimid isku dhac ansaartii iyo muhaajiriintii inta xoogaa la isu faanay in dagaal astaamihiis ay muuqdaan ilaahay baa ka jawaabay marka arrinkaas haddaad qolyahaas gobol ka mid a sharwadayaasha aad adeecdaan yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin intaad ilaahay iyo rasuulkiisa rumayseen ka bacdi bay waxay idinka ahaysiinayaan dad gaalo ahoo ilaahayna ku gaaloobay rasuulkiisana ku gaaloobay sidaad ahaan jirteenna waa idin celinayaan halkaa waxaad ogaatay daacatulkaafir inaad adeecdid islaamnimadaada wax ku khilaafsanna aad ku adeecdid meesha ay kugu dambaysiinaysaa waa kufri iyo gaalnimo iska ilaali marka yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyeyow in tutiicuu haddaad yeeshaan fariiqan koox oo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka
yaruddukum waxay idinka ahaysiinayaan bacda iimaanikum rumayntiina ka bacdi kaafiriina kuwa gaalooba ayaa idinka ahaysiinayaan wa kayfa sideebaad takfuruuna u gaaloobaysaan walxaal antum idinka tutlaa la akhrinaya calaykum dushiinna aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa walxaal fiikum dhexdiinna uu ku sugan yahay rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa waman qofka yactasim qabsada billaahi ilaahay xariggiisa qofka qabsada faqad hudiya waxaa lagu hanuuniyo oo lagu toosiyey ilaa siraatin jid mustaqiimin ee toosan aayaddaani waxay ka hadashay 3 qodob labada qodob oo ugu horeysa waxa weeye dadkiibaa waxaa la leeyahay war qolyihiinaan waxaa weeyaan mushrikiinta iyo gaaladow sidee ugu gaaloobaysaan nebi moxamed iyo ilaahay ayadoo ay meesha yaallaan 2 waxyaalood oo labaduba ay keenayaan inaad rumaysaan maxay yihiin midka koobaad tutla calaykum aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa la idinku dul akhrin mar haddii waxa la idinku dul akhrinaya aayaad ay yihiin xag allana ay ka yimaadeen oo waxaan wax ilaahay wata ay tahay ilaahay inaad rumaysaan soo lama rabin taasi waa qodobka labaad cidda wax idiin sharxaysaay ruux iska socdo maahane wa fiikum rasuuluhu wa rasuul alle rasuulkii allah meesha wax idiin sharxaya wuxuu idiin sharxayana waa qowlkii alle labada qodobba waxay keeni lahayd inaad rumaysaan idinkoo labada haysta sibad u rumayn laadihin taasi waa 2 qodob qodobka saddexaad waxaa la tusiyey xarigaas ilaahay oo nabi maxamed uu sharxayo qofka qabsada faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiimin jid toosan baa lagu hanuuniyey dadkoo dhan waxay raadinayaan tub toosan kulli gaalku xataa uu raadin ogow laakiin meeshii laga raadinayaa la khaldantay midka joqoraha juwaanada xambaarsan oo bannaankaa jiifa liibaantii halkaasu ka arka halkaasu u qaba liibaantu inay ku jirto sida awgeed adiga waxa laga yaabaa inaad la khaldan tahayba oo kuleeyahay alla mu joqoraa noqdo mu juwaana qaato mu meelaha jiifsado qashinka cuno midka khamrada cabaya oo kilaabiyada ku jira oo tumanaya wuxuu halkaa ka raadinayaa sacaado iyo liibaano adigaana wuxuu ku arkaa wadaad reebaadiyahan hal xaba ka warqabin noloshaba ka dhacsanba oo adduunya waxay tahay baan ogeyn halkaasuu liibaanti ka raadiyey marka ilaahay wuxuu ku leeyahay qofka xariga ilaahay qabsada wuxuu ka reebay ka hara wuxuu faray la yimaada faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiimin qofkaasaa jid wanaagsan lagu toosiyo lagu hanuunshay marka nolosheenna toosnaanteedu xariga ilaahay bay ku xirantahay inaan qabsanno ayib وكيف سيدبا تكفرون أقالوا بيسان والحال أنتم إذنك تطلع الآخرين عليكم دوشينا آيات الله إلهي آيات كيسي قرآن كيسة والحال فيكم لحدين أكسو غنيهي رسوله إلهي رسول كيسون لحدين أكسو غنيهي ومن يعتصم قفك قبصدو كدغا بالله حرق ألا قفك قبصدا فقد هدي والا هنونية إلى صراط جد مستقيم يتوصن ودينك إلهي بوضا توصنان يا أيها الذين قوى آمنوا حق الرميو اتقوا الله إلهي كبقى حق تقاته بقدنتي سلبتأ إلهي كبقى اسكتشرا ولا تموتنها دمننا إلا والحال أنتم إذنكم مسلمون كوه قانسان آتهين ماهاني إلهي حكمتي سوحا كمده بعد نمدي قال هذا مركو كسوها الله يا إلهي شرعيسي إنay ku xadgudbeen buu ilaahay halkan wuxuu ka guda galayaa oo ka bilaabayaa dadka muuminiinta ah dad dhamaystiran oo wanaagsan inay yihiin naftoodana wanaajinaya qeyrkoodana wanaagas ugu yeeray kuwii horeeto waxa la intuu tiicu fariiqa min alladina soo lagama soo dayrin kuwana waxa laga warramayaa inay muuminiintu naftoodii anfaceen qeyrkoodna ay nafcigaas iyo wanaagga ugu yeerayaan kow ilaahay wuxuu ku bilaaba magac wanaagsan oo qiimo badan oo loo yaqaan iimaan buu ilaahay kugu yeeray ayuha alladina aamanu dadka muuminiinta how ittaqullaha ilaahay ka baq wax ka fiican ma jirto ilaahay ka baq ilaahay ka baq in lagu yiraahdo adna ilaahay ka baqdid waxa ugu weyn oo janno lagu galaa waa ilaahay cabsidiisa nabi maxamed baa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam waxa ugu badan oo ay janno ku mutaystaan waa maxay markaasuu yiri taqwallahi wa husnul khuluq in ilaahay laga baqa iyo akhlaaq wanaagsan oo dhowrsan labadaas ayaa waxa weeyaan ugu badan oo janno lagu gala markaas la yiri maxaa cadaab lagu galaayo ugu badan markaasuu nabigu yiri alfamu wal farju waa afka iyo ibta iyo waxa weeyaan xubinta taranka
وأفك هذا دتك قالوا بي أنت بدن قول بيشيغان وكو قالوا بان كوا وحمانية كوا وحعاية كوا وحوي الزنا وقلاته الفم والفرج مركا إلهي كبقى وحا عجيب حق تقاته عبسدي سربته كبقى عبد الله بن مسعود بأيضا وحو كفسر سنة صحيحة سيدة كغسوغان مركي لو ويديو ليرا عبسدي إلهي وامحي أن يطاع فلا يعصى عبسدي الله ربطه وإن إلهي لا أطيعه وأن لا عاسن لأن طاعته هي عاسنمadu waa iska soo horjeedaan cagsi bay isku yihiin kow wa an yushkara fala yukfar in lagu shukriyo oo i'tiraaf la yimaado abaalku ku galay inaad qirsan tahay xaqana ilaahi aad ku gaaloobin wa an yudhkara fala yunsa in mar walba ilaahi la xasuusto oo aan ilaahi dhikrigiisa laga tagin halmaan ma macnaha waxa halmaan kuwa ka dhacaya لكن قف ذكر إلهي عضاعض إلهي كتجين هذا النقطين طيب حق تقاته وحلو جبي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون إذنكم مسلمين ما هي هذه مننا إن المسلمين ما كل متد أما قال ما أتكل متد ما وح أدو أدسكاء وجود وصار بتكسب ما ينكرته ما وجد إلهي بروح ربنا قال ما كد ليه كور ربنا إسلامي ما كد ليه مرة ضي سيداتها هي wax awoodaada ka baxsan baa lagu diro waxa lagu yiri wala tamutuna illa wa antum muslimun ma xala marka isdiidi maayaan ayadan inta waa la nasakha wala tamutuna illa wa antum muslimun maxaa lagu nasakh asoo maray ya fattaqullaha mastata'tu ilaahi ka baqa waxaad awoodaan ilaahi kaga baqa taad awoodid baa ilaahi kaga baqaysa fattaqullaha mastata'tu marka intaana waa mansuuq jamhuur badan baa sida qaba إلا وأنتم ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وأنا صومر سورة البقرة صومر إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون كقصوا هذا لو كجب عنا مركا تقوى الله الله هيو وأنت أوديت بد إلهي كجبقيسة أنت هذا أودين إلهي بكم مدر سنبا سببت العبادة إلهي كود الصورة وحي كحرنتها استطاع ذات أود هذا كحرنت وحي كل علماء ليهم ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون قيب كم إذا علماء وحيرها منسوخ معه وعادي معنى هذا وحوي sunnada ilaahay baa waxay u badan tahay qaalib ah qofkii shay ku noolaada asagoo ku dul dhinta inta badan dadka gaalada gaalnimo ku dhintaan soo mid arag badankooda inta muslimiintaana maxaa badan inay islaamnimo ku dhintaan waxay yiraahdaan man shabba ala shay'in shaba alayhi qofkii markuu dhalinyarada yahay shay u badan uu ku dul cirooba waman shaba ala shay'in mata alayhi qofkii shay ku dul cirooba oo ku ciraysta islaamkana وحاول مات عليه وكدنته ومن مات على شيء قفكي شيء كدنتنا بعث اسغي با لو سو سار قف walba markay naftu ka baxaysa shaqadu hayo ku soo baxaya soo qaad cunaya ninkii dhintay soo qaad cunayo soo baxaya qiyaamada asagoo zinaysanaya ninkii naftu ka baxday asagoo zinaysanayo qiyaamada soo baxaya asagoo khamra cabaya ninkii naftu ka baxday asagoo sidii soo baxaya muslimiin asagoo laynaya ninkii naftu ka baxday oo xaq darro ku laynaya asagoo sidii wax laynaya buu qiyaamada soo baxaya ninkii asagoo isdilay oo tooreyda isgeliyay asagoo isku jartarayo qiyaamada soo baxaya qof walba wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraya marka yaa ayuha alladina kuwa aamanuu xaqa rumeeyayow ittaqullaha ilaahi ka baqa xaqa tuqaatihi cabsidiisa dhabta ilaahi ka baqa walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa hogaansanaatihin maane wactasimuu qabsada bixablillaahi ilaahi xarigiisa jamiican dhammaan xaalaatihiin kulligin xaalaatiin xariga ilaahi qabsada walaa tafaraquu ha kala teginina wadkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahi barwaaqayntiisa calaykum dushiinna uu idiin barwaaqeeyey id waqti xusuusta kuntum aad ahaydeen acdaa'an kuwa col ah fa allafa uu isu soo kiindumay bayna quluubikum quluubtiinna dhexdooda fa asbaxtum waxaad ahaateen binicmatihi ilaahi barwaaqayntaa uu idiin galay sababkeeda ikhwaanan walaalo wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkiis kuwa ka laalaado minan naari naar ah fa anqadakum ilaahi wuu idin badbaadiya minhaa godkii naarta ahaa buu ilaahay idinka badbaadiya kadaalika sidaasi la mid a arrinkaas ilaahay uu idinku caddeeyey ayuu
يبين أعدين يا الله ألا لكم إذن كآياته آياتك لعلكم صاد تهتدون أهننتان آياتان إلهي وحو أمدودن أكو أمري واعتصموا بحبل الله جميعا إلهي حرقي سين الله وذا قبصده حرقي والله قبصنا يو توحيد كي إسلام كل جوان نقول ليه واعتصموا بحبل الله جميعا حرقي إلهي وذا قبصده كل جي وإذن كوذا فلان هي وأنا لقوبة بعديه تاسوا قضبوه وحالينا فري مدينم وحالينا قرر بيقيب سنان ولا تفرقوها كلا تجيننا سببته وحوي خلافك يا إسقاب قبسك يا كلا تجوا شر جيت كيري سو مغل ميسي جوديني إنه جيت كجودين له الله جودين توحى الله يقانا رباديه مركي جيدها شريان بهاشا جيدها كشران بعد ضاب بالكلية جيت بالسوقين لام بالسوقين يا لام تبى بير لجلين بيرتي بمركي جيت كالو شريا جيت كان واحد شريا بيرت كليو ما شري كرتو جيت كقريب كم إذا الله كالميسا مركا قبل أنا إيجام إذا يكوج شريه إما هذا كويسين بي أنا يا قارك هدوسن شري لهين وأتكلميسني يصير ما ذكرتين واحد أركتين وعالم الإسلامي ما أنت كتشره وقح يدباتو يسدل إسبركعين ووحوين دي عذاب بكسر ما أنت عالم الإسلامي عذاب ولب عربت عذاب بالمصر فيري بالسوريا فيري وحوين ليبيا فيري بالسودان هذا فيري صوماليا لفتر كذا فيري مشاكل بكتشر ضلني يرتب على الله ينيا وضياشي على الله ينيا علمادي على الله ينيا أخيارتي على الله ينيا ومد حلقة هيد على الله ينيا هذا استيراد المساجد كعر السوق السوق كبد بادي ميس هذا سوق كسو عرتو مساجد كسو أدينا أسير لفتر كيسا الوجود لهاي لبضو ضبا نيكي إسكدا يجوري سجوجان أسجنا والوجود لي وحبت بادي مال بركة عذاب بك الصعدة معاك يعني أيها إسخلافة إلهك ما قدر أيها الدين إلهك التجي رقنا إنسان الحين يوم ذي إنسان قانون يبلا يكليته يميلان إلهي نقول بوجلين بينول كرادين ديمقراطية 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 ورباشان حيتها بس يا كده إنكارن ولا شيء هي حاجة نقصوا شيء صار روح مسلمان لبتيد صار إلهي كتابكم مسودتين صار رسولكم الصادرين وكوغن عويده خلاف الكاسوكين مرك ولا تفرق واحد وقعتها مرك واحد قيم عليها أنت عاد مدي سنتح عاو أدي إسلام تده هذا إسخلافتنا بتقول يقول مت حارس كسيحن ميسي وزاز ما وهكون مات محل أمنا إنسان مرك الله وقف وجرو الدجنيت كليه هذا علادي ساميسي ومطن محل أمنا إنسان هير مدحوينا إلى شعبك وبابا هذا مرك أمضاس ولا تفرقوا سيدا أوجد ولي واحد كشق يسا أمضا مدني مضيعه وحاد إسكائيل على سا واحد كستا وقيب سنان أمد كويري نينكي كويري قبيل رهبل بين النهاي وأنا أنت شنو رهبل إسكاد عنه هذا الرهبل وقلاها لكن ظلم الرهبل كقول ما إهدي يسون كدقي قيامة أذو كل جاي الوصوص صارية ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كل جاء أذو هذا إلهي هو إيمان وقاون وبري قبأ وحتى كبأ قبل دعسنا الله كديه نينكي كلها إنك رهبل محاين وأدن قبل ياش كودي مالك أساس ما تقنوات كالعريسة نينكي مركا كويري يا فرقة نمو قبيل نمو هكييني مدينات أو كوح كصابسان كوحيس أرف نينكي كويرة كي كويرة اتحاد نقوها نقون أدر أنا أقول سوماليات بان هيد أنت سأقول في المسلم نواة خلاص كي كويرة صوفي نقو هكييني أنا مسلم بان هيد مسلمين هدي وحكوتر وإذا اتحاد نمي صوفي نواة حكوتر رئيس حاجة كسوي وحن رقب على بحي كل وشغل هكوكل مسلم إلهي وحي القرآن كل شيء وهو سماكم المسلمين والمسلم متى دين تا إسلام كوحنا فريس ما قدنا ها أنت سينقول في العياد الدين الوقدي حاري ويرس أورهبل يكو حبل وحوين أورهان مقعيد لبح كل جد من دم هيدي كل جوين مرك مالك الأور نقطي أور خسوح وقبات كو خصبنت أساس كو خصبنت هاي أساق الله صاحب تهاي وحي أساق كسهر وحي الله هاي وحوي خلاص جيس كد جلنيس مرك حر نقو أضو حرة هيدا كلش أدون كان حرية دا كنولو يعني لو أدونسن فكرة داده عقل جاجة مان كاجة مسكح داده هو سمى كل مسلمين بل أرلدا إله واسع ومسلمين ماذا أضو هايس ما هقول الله كقول لي عريري عقل جاجة مركو وين أنت كسر ريوي واعتصموا قبصدا بحبل الله إله حرقيس جميعا ضمان حالاتهم ولا تفرقوها كلا تجننا واذكروا حصوصا نعمة الله إلهي برواقديس عليكم دوشي نو يالي إذ وقت كنتم هذا هيدين عدان عل ضد إسلايي أهانتنا مدي عربيد وقبلها كلا دعة وإس أدون صدا
أوس يا خزرج ولا بقى قبيلة ولا رشيو رهبني قيل الأورنج رو يمن كسو كذا بأبر إسكادي جاي مدة دير هالدجالمي إلهي بقى سكاني مرك دين تا إسلام كان مديسي وحكلوا مدي واواي ومدة إسلام كان ما أنت وحكلوا مدين كرا لما أرك لا إله إلا الله محمد رسول الله كتاب كقرآن كا كل يوم بمدين كرا وحين أنت كسوة هرينك كرا وانكم مدين وحاول يمشي الأورنج عينه بقى كبي دوي طيب إذ وقت كنتم هذا هيدان أعداء عل فألف وإسسوا كنتم إلهي بين قلوبكم فألف وحو إسسوا دوية بين قلوبكم قلوبتنا لحظة فأصبحتم واحد نقطين بنعمته إلهي برواقديس سبب كذا وتآلف كاس إسسوا دوان تاس إخوانا ولا له وكنتم واحد هيدان على شفا حفرة وقد شفانا وامحي وقرك قد كدانتي سيدين عيسى ويميشا أفكا مركا قد نار غركي ساتاغنيدون إناد كل دمات إناد إسلام قال لما هداد كل دماتان هورات كجل لهيدين قد كاس مركا أفكي ساتاغنيدين إناد قد كا نار تاقشانا وحا إذن كان إمنيد كليا إناد قال لما كل دماتان إلهي بإذن كبت باديو إسلامي ما إذن سي على شفا حفرة قد وحويا غركيس أما دانتيس ومن النار نار فأنقذكم إلهي وإذن كبت باديا منها شفا حفردي كذلك سيدا سلم إذا آيات كسلاهي إذن كعدي أيو يبين الله وعضينا يا لكم إذن كآياته آيات كيس لعلكم ساتهتدون أوها ننتا ولتكون هات منكم إذن كم من نغطى أمة كوح يدعون ضدك ويرى إلى الخير وناج ويأمرون فر بالمعروف وناج وينهون الريب عن المنكر حماتضة وأولئك كواس هم أيجا المفلحون كوا الليباني ولا تكونوا هنقننا كالذين كويك والله إذا تفرقوا كلا تجي واختلفوا إسخلافي من بعد ما مدك قدال جاء ويمد هم أيجا البينات حجوين عد ويمادين وأولئك كواس لهم أيجا وحا أصغناضي عذاب كاسو عظيم وين أيا أصغناضي شركو ذحانو تشني إلهي وحو كور رميه ومد إسلام كان أمر كسي ومد صدح تلمامود لإن لغاهلو يا أمداس أبالكودا إلهي إنو شيغي تلمانتا كوباد waxa way yadcuuna ila alkhayr tawxiidkii dadka ugu yeerayaan tilmaanta labaad ya'muruna bil ma'ruf wixii wanaagsan iyo samaha iyo khayrkii dadka farayaan tilmaanta saddexaadna waxa way wayanhawna 'anil munkar wixii xun bay dadka ka reebayaan wax allaala wixii sharci ilaahay ku xun waa munkar kaasi ka reebayaan wax kasto sharci ilaahay ku saxana waa ma'ruf asagay farayaan ummadda noocaas ilaahay wuxuu yiri waa liibaaneen maxay ku liibaaneen wax allaala waxay rabaan oo aakhiro way helayaan wax allaala waxay ka baqayaan oo ka badbaadayaan ilaahay wuxuu kar inaga reebay kuwa cagsigooda walaa takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu ha noqonina ummad diintooda ku kala tagay diintiina isku khilaafay marka la isku khilaafo maxay imaanaya in la isku diriro ana saxan iyo adaa saxan tooreyda la iska aslo iyo birta iyo baasuka eber la iska siiyo waliyaana mujaahid baanahay adna waxa weeyaan mujrim dambiilaha tahay gaal Soomaalida qabaa'ilku markay dagaalamayaan ama ururo u dagaalamayaan urur siyaasi ha noqday waxay leeyihiin ciidamada iyada mujaahidiinta waradeer gormu ya calankan ku siiyay ciidamada mujaahidka oo laba qoys oo laga yaab barkad inay isku haystaan marka kuwooduna waa mujaahidiin kuwa kale tana waa gaalo خلاص waxa laga yaabaa in la yiraahdo xataa rag u fatwoodan la yiraahdo salaada gaabiya wax salaad la gaabiyo ka ansaxaysa lama arko naftu haday ka baxayso kuwaas oo kale xataa wax lama siiyo waa mujrimiin dambiilayaal marka wala tafarraqu kalladina tafarraqu wakhtalafu waxa ajiba min ba'di ma ja'ahum albayinat markay xujooyin cad u yimaadeen ka bacdi bay iskhilaafeen war diinta ilaahay waa xaq war waa dhab war nolosheena ku jirta war aan qaadano waa la diiday maxaa ka dambeeya ulaa'ika lahum cadaabun cadiim cadaab aad u weyn buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay cadaabka ay galayaan waltakun ha ahaato minkum idinka xaggiina ummatun ummad ama hal helo waltakun hal helo minkum idinka xaggiina xalay ka ahaatay ummatun ummad ummadaasoo yadcuuna dadka ugu yeera ila alkhayri wanaag waa islaamka wanaag lagu sheegayo waya'muruuna faraya ummadii bay waxay farayaan bilmacruufi wanaag wayanhawna waxay ka reebayaan canil munkari xumaha وأولئك كواس كوه صدق تلمامود الله صوشة كواله محييهن ضدك إسلام كويه ريان حماة ذي كريبيان ضدك وناجنا وفريان تلمامها الله صوشة كواله هم أيجا الفائزون كوا الليبانية المفلحون كوا الليبانية طيب ولا تكونوا هاننا كالذين كوي كوالا إذا تفرقوا كلا تجي ودين تكو كلا تجي
oo waqtalafuu iskhilaafay min bacdi maa muddo ka gadaal jaa'ahum uu u yimid albayinaatu xujooyin cadcad yahuudiya kristaan baa sida ahaa markay xujooyin cadcad u yimaadeen bay kala tageen waulaa'ika kuwaas lahum ayaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo cadiimun weyn goormuu u sugnaaday yowma maalin buu u sugnaaday tabyaddu ay caddaanayso wujuuhun wejiyaal wa taswaddu ay madoobaanayso wujuuhun wejiyaal maalinkaasay cadaab helayaan fa ama aladiina kuwa iswaddat ay madoobaatay wujuuhuhum wejiyaashoodu waxaa loo odhanayaa akafartum miyaad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina ka bacdi faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka bimaa bisababi maa shay sababkii kuntum aad ahaydeen takfuruuna kuwa gaalooba wa ama aladiina kuwa ibyadatay caddaatay wujuuhuhum wejiyaashoodu fa fii raxmatillaahi ilaahay naxariistiisa dhexdeeda ayay ahaanayaan hum ayagu khaaliduuna kuwa ku waraya weeye fiihaa dhexdeeda tilka taa la soo sheegay aayaadkaas aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisii weeye natlu waan akhriyaynaa haa ayada calayka dushaada bilxaqi xaalay tahay xaq mid ku dheehan wamallaahu alle yuriidu mid la doonaya ma aha dulman dulmin uu dulmiyo lilcaalamiina caalamka inuu dulmiyo ilaahay ma doonayo subxaanah ilaahay dulmi caalamka la dooni maayo ayib meeshaan ilaahay wuxuu ku sheegay qiyaamada marka la tago wejiyaasha dadku inay qeybsami doonaan qayb ka mid ah ilaahay wuxuu ku sheegay yowma tabyadu wujuuhun inay ifayso talow maxay la ifaysaa qur-aanka ilaahay ku sheega markay farxadda iyo barwaaqadu ka badato wujuuhun yowma idin naadira waa ifaysaa waa birbirqaysaa farxad darteed kuwaan ayagaana way madoobaatay oo wejiyaashii baa madoobaaday maxay la madoobaatay kow hadda waxaan haynaa asbaabta wejiyaashu ay qiyaamada la madoobaadaan inay ka mid tahay alkufru bacda aliimaan akafartum bacda iimaanikum iimaankiina ka bacdi miyaad gaalowdeen qof kasta oo iimaan lahaa oo gaalooba ilaahay qiyaamada wejigiisa waa madoobeynaya taasi waa qodob waxaa kaloo ka mid ah ilaahay in lagu been abuurto ayaduna waxay sababtaa maalinka qiyaama adoo wejigu ku madow yahay inaad timaadid wa yowma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allaahi wujuuhum muswadda wejiyaashooda madmadow ayay imaanayaan maalinka qiyaama qof kastoo ilaahay ku been abuurtay marka asbaabo badan baa jira kulligood laakiin waxay isugu urursanayaan waa macaasi waxa wejigu dadka la madoobaado ayib dadka wejiyaashoodu maalinka qiyaama ay caddaanayso waxaad u fiirsataa yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh wejiga madow iyo kan cadkee la hormariyey wejiyaasha cad baa la soo hormariyey natiijadoodiina u fiirso fa ama aladiina swaddat haddana yaa soo hormaray kuwii wejigooda madooba baa soo hormaray markii horena yaa horreeyey waxay culimmadu isleeyihiin maxaa loo hormariyey waxay leeyihiin booska la taagan yahaa wuxuu yahay maqaamku maqaamu taxdiir waa meel la isaga digaya cadaabka ilaahay fa ama aladiina swaddat wujuuhuhum akafartum bacda iimaanikum intaad iimaankii hesheen oo nuurkii dhadhamiseen oo wanaaggiisaad aragteen miyaad gaalowdeen faduuqu lcadaab cadaabka dhadhamiye ilaahu maxaan ku dhadhaminaynaa waxaad samayseen weeyaanoo bimaa kuntum takfuruun adaa khaladkaa sameeyo kaagii unbaad u cadaabanta wa ama aladiina byadat wujuuhuhum fa fii raxmatillaahi naxariis ilaahay bay ku dhex sugnaanayaan taasi waa kow waa bishaaro hum fiihaa khaaliduuna wayna ku waarayaan waa laba barwaaqe ma ogta jannadii baad gashay waad ku waartay weligaa ka baqi maysi marka inaad ka zuushid culimmadu waxay isweydiiyaan qolyahan la leeyahay akafartum bacda iimaanikum waayo dadkii aan iimaanba u hormarinba suu u dhashayba weligii islaamnimo ma arag qiyaamada ma waxaa lagu odhanayaa akafartum bacda iimaanikum iimaanba ma arag marka waa maxay qolyaha waxay yidhaahdeen waa ahlu kitaabka waxa laga hadlayo akafartum bacda iimaanikum diintii hore intaad rumaysnaydeen oo injiil iyo towreed ka bacdi miyaad gaalowdeen qolyo labaadna waxay yidhaahdeen maya waxaa laga hadlaya waa murtadiin cid kastoo ridowdo iimaan inta heshay ka bacdi gaalowday akafartum bacda iimaanikum soo laba qolo ma qolyo saddexaad baa waxay yidhaahdeen akafartum bacda iimaanikum kulligood waa loola jeedaa waa gaal oo dhan oo iimaanku muxuu yahay u hormaray qof kasta markuu dhalanaya maxaa lagu dhalaa fidrad saliim ah qof kasta oo la dhalayo waxaa lagu dhalayaa fidrad saliim ah markaa ka bacdi asagaa gaalnimada dooranaya akafartum bacda iimaanikum marka waana sax macnahaasa sax ah ilaahay wuxuu leeyahay yowma tabyadu wadkur dadka u sheeg yowma maalin tabyadu ay caddaanayso wujuuhun wejiyaal qof kasta oo ilaahay ateecay sidiina ku dhintay wejigiisu maalinka qiyaama waa nuuraya
haddaad adduunkan dhibsatay madow ku saaran aday afrikaanimada iyo madowgu waa ay dhibay maalinka qiyaama waad nuuraysaa iftiin baa ilaahay ku siin yowma tabyadu wujuuhun wajiyaal ay ifayaan wa taswadu ay madoobaanayso wujuuhun wajiyaal fa ama aladiina kuwa iswadat ay madoobaatay wujuuhum wajiyaashoodu fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa kafartum miyaad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaal faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka bimaa bisababi maa shay sababkii kuntum aad ahaydeen takfuruuna kuwa gaalooba wa ama aladiina kuwa ibyadat ay caddaatay wujuuhum wajiyaashoodu fa fii raxmatillaahi ilaahay naxariistiisa dhexdeeda ayay ahaadeen khaaliduuna xalayhim kuwa waaraya fiihaa hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya weeye fiihaa dhexdeeda tilka taasi kuwii horeeto u fiiriya natiijadooda maxay ku dhammaatay faduuqu lcadaab tanina maxay ku dhammaatay hum fiihaa khaaliduun xusnul khitaam bay culimmadu u yaqaanaano markii hore yowmu tabyadu baa lagu bilowday markii dambana kuwii yowmu tabyadu ah natiijadooda ugu dambayso khaaliduun ah dhexdana waxaa la soo geliyey faduuqu lcadaab iyo fa ama aladiina aswadat tilka taa la soo sheegay aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisii weeye oo waxay kulansatay aayaadkaas alle barwaaqooyin aylina aysan arag qalbina uusan suuraysan natlu waan akhriyaynaa haa ayada calayka dushaada bilxaqi xaq calay tahay mid ku dheehan wama allaahu alla yuriidu mid doonaya ma aha dulman dulmi la dooni maaya lilcaalamiina caalamiinta unkao dhan ilaahay dulmi lama rabo walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa wax allaala waxa fi samaawaati cirarka ku dhex sugan iyo wamaa wax allaala waxa fil ardi dhulalka ku dhex sugan hadday noqoto mulki asagaa leh abuur hadday noqotana asaga abuurtay addoommana asagay khalqi ugu yihiin wa ilallaahi ilaahay xaggiisa oo keliya ayaa turjacu loo celinayaa al umuuru arrimahana xag allaa loo celin oo wixii abaalmar ah mid adduunya mid aakhraba xag allay ahaadee kuntum waxaad ahaateen ummatu muxamedow khayra ummatin ummatii ugu khayr badnayd oo ukhrijat loo soo saaro linnaasi dadka talow maxay ku muteen inay noqdaan kuntum khayra umma la yidhaahdo tilmaamahan fiirso ta'muruuna waad faraysaan bilmacruufi wanaag wa tanhowna waad reebaysaan canilmunkari xumaha wa tu'minuuna waad rumaynaysaan billaahi alle maaqa tilmaamood wey saddexdaa tilmaamood baad ummadaha ugu khayr badnaateen haddii saddexdaa la waayo ummad uguma khayr badnid soomaali maxamed baan ahay ummatu maxamed waxbaa ku faani mar haddii iimaan billaahi lagaa waayo oo aad ilaahay rumaysnaan weydo kow ummaddana wanaagga aad ugu baaqi weydo xumaatadana ummadda aad ka reebi weydo qof kasta oo samaha ka talin waaya tilmaantan soo geli maayo wala faham sida awgeed qof kastoo caaw meesha fadhiyow waxaad ku dadaashaa maalmaha adduunyada aad nooshahay inay hadafkaaga iyo yoolkaaga u noqdo wanaagga ka tali weligaa sharha ka talin ummadaha qayb waxaa jira waxaa weeyaan aan lagu baran shaksi ama ha noqdo ama koox ha noqotee inay khayr ka taliyaan weligood inay wax qaribaan nin baa la ii sheegahay qolyo geel kala dhacay baa waxay yidhaahdeen aan heshiino markaasaa waxaa layi waaye markii la isu soo socday waa rag isgaranaya baa mid wuxuu yidhi ree hebel berri markaan isu nimaana hadduu hadalka hebel hadduu hadalka u furo nabadgelyo ma rabaan ogaada nin kale hadduu u furana nabadgelya rabaan aan la heshiino berridii markii la isu ninkii laftirkiisii ayaa hadalkii furay ninkaa maxaa lagu barta marka nin khayr lagu bartay ma aha waa lagu kala kaca mar hadduu hebel hadalkii furay baa meesha nabadgelya kama soo socotee naga keena marka intaad nooshahay qof khayrka ku calaamaysan oo khayrka iyo samaha ka taliya noqo walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi dadka ahlukitaabka ah hadday rumayn lahaayeen maxay rumayn lahayen iimaan sax ah la kaana iimaankaasu wuxuu u noqon lahaa khayran mid u fiican lahum ayaga yay rumayn lahaayeen hadday waqtigii ciise si dhaba u rumayn lahaayeen hadday waqtigii nebi muuse si dhaba u rumayn lahaayeen nebi moxamed hadduu yimidna hadday si dhaba u rumayn lahaayeen iimaankaasu la kaana khayran lahum minhum ahlu kitaab waxaa ka mid a almu'minuuna dad wanaagsan baa ka mid ah wa akharuhum badidooduna alfaasiquuna daacada ilaahay kuwa ka baxay wey aayaddaani ahlu kitaabna waa ka hadashay ummatu maxamedna waa ka hadashay ummatu maxamed waxaa la sheegay khayra ummatin inay tahay ummadtii ugu khayrka badnayd ilaahay baa cilmigiisa saabiqa kusii ogaa inay ummaddaana sidaa noqon doonto oo dadka loo soo saaro waxa ay ku muteenna waa xumahoy ka digaan iyo wanaagoo ay faafiyaan oo ay kow ka tahay wanaagga ay faafinayaan alimaanu billaahi wuxuu ilaahay sheegay subxaanahu walow aamana ahlulkitaabi ahlu kitaab
wax kastoo ay muhiim ahayd in la rumeeyo hadday rumayn lahaayeen oo kitaab alle iyo sunno rasuul iyo xisaab iyo abaalmar iyo jazaa lakaana khayran lahum qof walbana waa saas inaad ilaahay rasuulka rumaysaa kuu khayr badan inaad ilaahay rasuulkiisa adeecdaa kuu khayr badan ilaahay cadaaladiisa waxaa ka mid ah nimankii ahlu kitaabka ayaan soo qaadan oo ambiyada ilaahay leen jiray oo ilaahay waxa weeyaan dhibaateyn jiray ilaahay caayahayo ilaahay aflagaadaynahay nimankii noocaas ahaa buu inta qaybiyo ilaahay wuxuu yidhi minhumul mu'minuun dad mu'minuuna wanaagsan baa ka mid ah cabdullaahi ibnu salaam baa ka mid ah ma la fahma laakiin maxaa lihi wa akharuhum alfaasiquun xalay darsigeen waxaa ka mid ahaa wa min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yuhaddih ilayk xoolo badaan mid haddaa u dhibatay sideeda kugu keenay iyo mid hal diinaar haddaad u dhibatay aan kuu gudanayn ilaa inaad dul taagan tahay maahane waa qayb ka mid a cadaaladii oo kaleeto tiyo kale la mid minhum almu'minuun wa akharuhum alfaasiquun dadka inaad tiraahdo waa isku jilabiya xaab qaadahaya ree hebel oo dhan waa wada daaliyan uraa khala hebel waa wanaagsan yahay hebel waa fiican yahay koox hebel waa fiican tahay hebel waa fiican yahay hebel iyo hebel qofkii khaldan baa khaldan kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummad kuwa ugu khayr badan ummadaasoo ukhrijat loo soo saara linaasi dadka ta'muruuna xaalaad faraysaan bilmacruufi wanaaga wa tanhowna aad reebaysaan cani lmunkari xuma wa tu'minuuna waad rumaynaysaan billaahi alle walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi dadka ahlukitaabka lakaana iimaankaasu wuxuu u noqon lahaa khayran mid u fiican lahum ayaga minhum ahlu kitaabka waxaa ka mid a almu'minuuna dad hoggaansan wa akharuhum badidooduna alfaasiquuna daacada ilaahay kuwa ka baxay weeyaan oo diinta ilaahay bay ka fogaadeen taasina waa qodob marka ayib lan yaduruukum idin dhibi maayaan culimmadu waxay leeyihiin aayaddan intaana ka bixin hore wa akharuhum alfaasiquun ilaahay wa akharuhum alkaafiruun ma odhan waa gaalo laakiin wa akharuhum alfaasiquun buu isticmaalay oo qur-aanka uu cabira maxaa loo isticmaalaa dee waa fusuuqa waxa la yidhaha alkhuruuj waa bixid ilaahay diintiisii ayay ka baxeen diintii markay ka baxeen islaamkiina waa ka baxeen labadiba waa ka baxeen diintii hore u haystana waa ka baxeen islaamnimadana waa ka baxeen lan yaduruukum idin dhibi maayaan ilaa adan wax yar oo dhiba maahane wa in yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaanna yuwalluukum waxay idiin jeedinayaan al adbaara dabaday idiin jeedinayaan dhabarka uma laa yunsaruuna loo gargaari maayo duribat waxaa la yeelay calayhim dushooda ilaahay wuxuu yeelay adillatu hoosayn dulinimo iyo hoosayn dad liita inay yihiin dilla saasaa loola jeedaa duribat calayhim dilla aynamaa meel allaala meeshii tuqifuu laga helaba ilaa bixablillaahi xarig alle ilaa bixablin xarig inay ku dhegan yihiin oo minallaahi alla xaggiisa ka haday maahane iyo wa xablin xarig oo minannaasi dadka xaggiisa ka haday maahane wa baa-uu way noqdeen biqadabin caro oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa duribat waxaa la yeelay calayhim dushooda almaskanatu faqiirnimo daalika arrinkaas saddex arrimood baa la soo maray oo ku tilmaaman yihiin biannahum ayagaa kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwii ku gaalooba biaayaatillaahi aayaadka alle wayaqtuluuna waxay leyn jireen alambiyaaa nebiyaasha bikayri xaqin xaq la-aan daalika arrinkaasu xaasilun wuxuu ku xasilayaa ama haabitun bimaa casow bisababi cisyaanihim caasinimadooda sababkooda iyo wa kownihim ahaanshahooda ay ahayn yactaduuna kuwa xadgudba aayaddan ilaahay dadka mu'miniinta ah wuxuu ugu bishaaraynayaa qolyaha gaalada loo yaqaano oo weliba khaasatan yahuudiyeed ahlu kitaab baa laga soo hadlay walow aamana ahlu kitaab soo maaha qolyahaasi hadday nebi moxamed rumayn waayeen lan yaduruukum idin dhibi maayaan ilaa adan waa maxay inay idiin hanjabaanoo carabka idinka caayaanoo meelahaas wax ka soo tuurtuuraan maahane dhib ummadda islaamka oo dhan gebi ahaanba wada saameeyo kulligood ma dhacaysaa le taasi waa qodobka labaad haddii dagaal la isugula yimaado yuwalluukumul adbaar dhabarkay duwahayaan oo wax cararaya ma hayna ayaga adduunka maanta haystee aynagaa waxaan gabnay kaalinteena islaamnimo yaan gabnay marka wax weyn la isma dooriya ilaahay cidu caynshay maahane way cararayaan hadday cararaan ma laga yaabaa in loo hiiliyo uma laa yunsaruun maya ciidan alle cidu ka adkaaday guul heli maayaan taasi waa qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay saddex tilmaamood oo saddexduba aad u khatar badan yihiin qodobka koobaad waa adilla hoosayn meel allaala meesha ay joogaan cizo ma leh hadda waad aragteen kuwan yuhuudeed qaryo yar bay ku nool yihiin in yar bay joogaan adduun weynahay maanta waxay ka codsanayaan badbaado war ayagaaba adduunka ugu hub badan oo ugu dhaqaalo badan oo ugu aqoon badan oo waxa weeyaan adduunkii o dhan ba ayagaa gacanta ku haya saasoo ay tahay maraykanoo markaa doorashada galaysaa naga warqaba yaa nala iloobin taasa lagu haya dowlada ayagaa ka taga yar oo ka aqoon yar bay waxa weeyaan magan u yihiin meel kasta horta dulligaas waa haystaa kow
waxay ku badbaadi karaan laba qodob ilaa bixabli min allaahi wa xabli min annaas ilaahay qowlkiisu waa xaq islaamnimo hadday helaan islaamnimada waa ku badbaadayaan kow cizay ku helayaan haddaysan taa helin oo dad magan u noqdaanna waa laga yaabaa magac in helaan waxay maanta ku joogaan islaamnimo ma ah dad bay magan u yihiin oo magacooda ku joogaan xablu min annaas bay haystaan qodobka marka waa qodob waa dulli qodobka labaad meel kastoo joogaan cari ilaahay bay qabaan wabaa'u biqadabin min allah qodobka saddexaad waduribat calayhimul maskanatu ilaahay baa wuxuu ku shaabadeeyey maskana waa faqiirnimo miskiin baa laga keena faqiirnimo adduunka hadduu ugu dhaqaalo badan yahay ma aaminsana cid ka faqiirsan inay jirto caawa haddaa kusoo yeetan waa kaa seexanaya ma la faham aduu ku shaxaadaya isagoo safaaricom iyo balaayo iyo wax la sheegaayo waa adiga ku shaxaadayaaba aduu ku daba taagan yahayba ayib daalika saddexdaas buuna ilaahay ishaaraya daalikada la ishaarayo waxaa weeye dulliga qadabka iyo maskanada saddexdaasba maxay ku muteen kaanuu yakfuruuna biaayaati illaah ilaahay diintiisa bay ku gaaloobeen kow ambiyada ilaahina waa layn jireen labo xadgudub naftooda iyo khalqiba ay u geysteenna way lahaayeen lan yaduruukum idin dhibi maayaan ilaa adan dhib afka baarkiisa maahane wain yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaan yuwalluukum way idiin jeedinayaan aladbaara dhabarka uma laa yunsaruuna loo gargaari maayo duribat waxaa la yeelay calayhim dushooda adillatu hoosayn iyo dulinimo aynamaa meel allaala meeshii huqifuu laga helo ilaa bixablin xarig inay yihiin kuwa haysta maahane oo minallaahi alle xaggiisa ka ahaaday dulinimada way kaga baxayaan iyo wa xablin xarig oo minannaasi dadka xaggiisa ka ahaadayoo magangelye iyo jizye iyo ammaan iyo mucaahado iyo wax un hadday helaan waa laga yaaba inay ku badbaadaan wabaa'uu waxay la noqdeen biqadabin caradaasoo minallaahi alle xaggii ka ahaatay waduribat waxaa la yeelay calayhim korkooda almaskanatu faqiirnimo daalika arrinkaasi xaasilun wuxuu ku xasilayaa biannahum ayagaa kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwa ku gaalooba biaayaatillaahi aayaadka alleh wayaqtuluuna waxay leynayeen alambiyaaa nebiyaasha bikayri xaqin xaqlaan daalika arrinkaasi bimaa casow bisababi cisyaanihim caasinimadooda sababkiisa weeye iyo wa kaanuu wa kownihim ahaanshahooda yactaduuna kuwa xadgudbay ahaayeen wallahu aclam.